السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweyne kusoo dhawaada barnaamijka SP channel sidii hore baniinka barateen barnaamijka maanta ay siin jeediyo anoo ay mukuy intana siin jeediyo wadanka Mareykanka gobolka Vermont studio SP channel dadweyne barnaamijku inuu geeyka siin hayn iyo may ka saabsan yahay su'aal magaca jariir weyne mise magaca jariir magac unsurinimo waa mise magac qoomiyad ama magac qabiil geega barnaamijkayna su'aalas ya ka saabsan yahay laakiin dadka qaar may ka yaabo in ay isdhaxan ninkan barnaamijyaasha dhan su'aal leh may su'aal barnaamijyaalka badansho ayana wadanka Soomaali iyo dadkii ku noolyan dhanba iyo atageega su'aal in la isku weydiyo saas dartiya iyo barnaamijyaalkayn an ka badanyan su'aalas iyo barnaamijkayna geegana ka saqaadana ku soo dhawaada horta magacan jariir weyne dad far badan iyo si shishal duwanya ayagan aaminsan gaar ahaan hadana dadkayna Soomaali baantu dad may aaminsan in magacan magac unsuri ayo dad may aaminsan in magacan tilmaan ayo dad may aaminsan magacan in ayo magac oo jariir dhan la kamiday oo hallanka dhiki oo waliba hadana weyne lanka daray maana jariir oo badanyan ama murug wiinyan ama sanwiinyan walyaalo far badan iyo dadkayna Soomaali baantu magacan inkashal aaminsan balaakin xaqiiqada jirta oo dhabta may atee magacan in asaga ay magac unsuri oo geed balanka sagabina magac unsuri seka ay way magac unsuri may ka ay horta markii hore magac jariir weyn ama magac jariir macaanishe may way ma magac qoomiyad waa ma magac qabiil waa ma magac qof magaashe waa may ay way magac jariir weyne magac qoomiyadna ma magac qabiilna ma qof magaashana ma magac jariir weyne ama magac jariir lamadaba isku dub may hooseedayna tinta jariirta adagoo yaala iyo hooseedayaan tinta jariirta adagoo yaala oo ilaahay saas asaga keenka abuuradii jariirnimadaasna ilaahay ula jeedidii usa keenka abuuri asaga la ogyo ninkii geega oo adagkeenka dhiki magac qoomiyad ama magac qabiil ama magac tilmaan ama ad shakhsi ahaanta magaaga keenka dhiki unsuri way ilaan qofka bini'aadanka sidii ilaahay abuuri in adka tilmaanto ama anku weerto waa unsurinimada oo geed balanka gabina oo magacaas jariir weyn asaga wadada ayaa taas atway dadkayna qaar sidii horeba in sheegay ayaa hadda may aaminsanaa magacaas jariir weyn ina tilmaan at oo aan hayna magac unsurinimo qofki ilaahay sidii asaga abuuradii haddii adka tilmaanto macaanishe may way taas macaanishe may lewa unsurinimo sababtay ad xaqba man la qofkan ilaahay sidii abuuradii in adka tilmaanto taasna waa dambi oo ilaahay higshi adka galoyd ilan qofkan adam abuuran ilaahay abuuradii asagiya jariir ku weeldidi asagiya sansha wiinay markii ilaahay dadkan asaga saas ka dhikayn adam makeela talana ama dadkii saas la ka dhiki ilaahay asaga ma ila talana dadkas asaga oki ilaahay dadkan walaahi saas an ka dhiki marka in adka tilmaanto qaabkii asaga ay oo ilaahay san abuuradii taas waa dambi ilaahay higshika galoyta iyo unsurinimo way hadda lama goodada ayaga dhatiyo markii ayaga istilmaamayaan qaabka iyo ayan miska tilmaamayaan lama goodla ma in istilmaamayana si reer ama qabiil iyo in istilmaamayaan lama goodla ayaga lama leeway group iyo qabiil group may waa dad iska hirinyo oo hal magac ayaga ka midoobeen sidii habiyaha iyo daaroodka gruubyaalkaas iyo andana qabiil inshal baxayaan badi ayaga group ahaan min istilmaamayana qabiilka in istilmaamayaan marka ayaga dhatiyo istilmaamayaan war ninkii reer hebel ya isdhaxayaan ama qofka magaashe an ku weerayaan laakiin qaabki ayaga ilaahay san abuuri ama qaabki iyo ayan ayaga min isku weerayaan laakiin ada Soomaali baantu at oo tinta jariirta at san ka wiinyo wadanka Soomaaliya meel rawbax ku noolado making ku weerayna jariir laakiin ayaga misdhaxayaan jilow marka ada Soomaali baantu atna magaca jariir weyne ma uumaan wal kala making ogoliyo ada qoomiyada ka dhalati ada qabiila ka dhalati ada magaca la qoomiyada making ku weerayaan qabiilka making ku weerayaan magaaga making ku weerayaan ayaga may jecelyana sember in ayaga kin ku weeran tinti ada kooyaal oo jariirta taas iyo sember jecelyaan haddii hatta ada dhato war ana jariir qoomiyaday ma jariir qabiilkay ma jariir magaagay ma ana qoomiyaday magaagan way ana qabiilkay magaagan way
ana magaagay saangal dhehe haddii aad dhato hataa ayaga ma koobeelayaan ayaga simbir meela kala jeceliyana in ayaga kinkuwiran magacaas jiriirka oo cunsuriga ulijeedada kelimayo markaas in ada la kooxumaayo oo ada niida la kinka dilo in ada la kutuso in ada walba an lahayna oo qoomiyad an lahayna oo qabiil an lahayna oo magac an lahayna qofka lama gudug usoo magaaga ka sooya ayaa maykinka weeree ninka jiriirka ama wiilka jiriirka ama gabadha jiriirta iyana ma in isku weereen markaas wiilka Soomaaliga ama ninka Soomaaliga ama gabadha Soomaalida ayagana saasa in isku weerayaan adana Soomaaliya laakiin ada Soomaali maykinka weeraw ada tinta jiriirta iyo lakinka weere ilaan qofka haddii asaga ina ku humaayo asaga rabayna magaaga kinka weere qoomiyadii ada ka dhalatiya kinka weere sidii ayagaba in isku weeroyan laakiin ayaga intaas dhanba marabaan Soomaali bantu isku duub guud ahaan wadanka Soomaaliya meel kasta ayuu ku noolyaan lama guud maylan ogolyana in ayaga inku weeran jiriir wal kalami la rabaan hatta haddii aad dhato magaagay kan way qoomiyadii magaagan la dhehe ama qabiilkay magaagan la dhehe hatta haddii aad dhato may ka dhaxayaan war mitiid jiriira tahay adi sidaas ka dhaxayaan marka magaagan anabali dhehe ka dhay saanga jecel inku weeran haddii aad dhato ana ma ila magaagas makiinku weeraw ana tinta jiriirta atlakin ku weere macnaheedu maywa ana sembir may kala jeceliya in aad ku unsuriyayo oo unsuri la agtay ka ahaato macnaheedu saas way ilaan qofka haddii ka dhahi aan walaagan idhiboy oo dhaaf waa in aad ka dhaafto laakiin lama god may bataaginyana una masiin ka dhaafan isin jiriir le atan intaas dhan marka may diidoyana magacan baantuuga ina banaanka sabaxo ku sababta magac baantu haddii ayaga qiran dadka Soomaali baantu ina dad baantu iyo ayan taariikh beenbeenti ayaga qoranta ayaa meel ka baxaas way sidaas diidinyan oo sembir la rabo dadka Soomaali baantu ina ayaga magacaas jiriir ku unsuriyayo ulijeeda kala ma jirto hadda markii ana barnaamij ana suubiyo oo aramahan oo kala aan ka hadalooyo dad lama gooda ayaa comment ahaan barnaamijka hoos in ku soo qorayaan oo dhaxooyan jiriirkan waa unsuri jiriirkan waa qabiilista markii ada jiriirkan unsuri ada dhaxoyta isla hadalkas ayaa baan oo unsuriyayoyto isla hadalkas ada dhaxoyta jiriir markii afkas ku baho jaan saasaba oo unsuriyayti unsurinimada kala intii lan diirna taasa borto ko oo unsuriyayti kaasa handana may ku dhaxoye unsuriya lama god qabiiliste hadii dhahono wadanka Soomaali dhanga ba qabiilka dhisanya lama god qabiila in istamayti wadanka Soomaaliya geega meeli yaala qabiila dhiki illa haddana wadanka Soomaaliya qabiil iyana istamaayo ururkan iyo walyaalahan meel ka jira been way walma ka jira qabiil laba walaagas dhanba been oo dadka Soomaali baantu iyo caalamka lan sheegoy way sababtay kuwan hadda oo ururka oo hadda la magac been oo wadanka Soomaaliya qaska ku wadan meeli ayaga ka taliyooyan qof Soomaali baantu geega baabur gadadii ma ka shaqeeyo laakiin lama god baabur gadadii ka shaqeeya ku sababtay iska qabiila ayan marka lama god qabiil dhimadaayan lama ushmaahin ma dhaafayan horta ururkii la rabo suubsadan dawladii la rabo dhisan magaagii la rabo ila baxan lama god qabiil ma dhaafayan adduunyada meel kasta ayagu rooga hatta masaajido ayaa qabiil jiye geega ma ogolyan lama god qof oo tintis jiriir atasan shawiina ina salaad ayaga dujisiyo ma ogolyan masaajidyaal far badan oo Mareykanka ka yaalan oo dadka Soomaali baantu imaamka ayan oo masaajidkaas hogaansho ayaga hayan iyo lama godyaal far badan ku rooreen oo dhaxooyan macna anaga adoon iyo jiriir salaad ma kiiridaan ka bahandan dadka Soomaali baantu ayaga dhatiyo iyo handana qabiil masaajido iska haysadaan marka adiga saas ana qabiil walaaga an inka eedayaa samay way wadanka Soomaali dhanba qabiil ka dhisanyahay xukunkan Soomaali ka jirana geega ina dawlad federaal ka tilmaamo ba meeba dawlad qabiil in la ka tilmaamo way ilan ayaga dhan anaga wada ogna qabiil iyo meel ku kooyan way qabiila jeesidii meel qof qabiil jeesidina wadan wal mantara qabiil shala wal antare marka hadii dawladda dhanba saas ka dhisanta oo lama goodada dhatiyo qabiil iyo inas dhamaayeen illa haddana inas dhamaayoyan qabiilka ila masaajidka ayaga la galeen marka ana may qabiil inka eedayaas way hadii ana geega qabiil ana ka dhagamoyina adala ibarti qofka bini'aadanka hadii adaadiska ada ka badido bahala nagade oo durgaleen marka magacan jiriir weyn ina magac unsuri ay taas ma isweydiyo shakana ma ka jirto laakiin lama god si kale iyo kinka macnaayeen sidii kale ada kinka macnaayoyan iyo dadkayna qaarna aaminin
oona kamid ay hadda ayaga dhuqooyan magaca jireer weyn ama magaca jireer tilmaan leway taas dhib malad adiga Soomaali bantu ama bantu dhati oo kale umbalimad at jireer wal dhib ay ayada la tama jirto weynina hadii la ka daro jireer midaysan la ku wada tilmaan leway taas dhib malad tilmaanta naftir shaba may sheeni way hor ana magac balaye ana qoomiyad ba ka dhaladay qabiil ba ka dhaladay tilmaanta may sheeni haddii aad magaaga in kasayni i weydi magaaga ide intii ana qaabki aan ilaaysayn awuuridii ad oo tilmaam lahayti magaaga ide ilan adab tilmaam malato Soomaaliyan ahay iyo dhuqoyte marka ana ma in tilmaamoyto way marka lama godo cunsurinimo ayaga meel ka diiran way marka magacan jireer weyne ina cunsuri ay ma isweydiyow dadka Soomaali bantu in ayaga si fayl ayaga ogaadam qofka lama goodiga marka jireer ama jireer weyn asoo ku dhoo ko warta sida sabab ku unsuriyay ba unsurinimo oo meelan ka laabo ma un lahayno way oo toos lama gooda mar al markii asaga ka aflagaadayow magaaga ma ku aflagaadayow kooba aflagaadidis may ku horoyte jireer hadii lama gooda keenano usma baka aflagaadayna ba ama ma baka ayna magaaga usoo ka sawad oo hebel ka dhaxaw tinta ku aflagaadayan ko walyaalahaas dhan si isku dub cunsurinimo oo lama good agtiyo ka ilma dhali way dadkayna Soomaali bantuudan may dhahaayana hadal afsaka bahi ulees male marka taas may la jeedo way lama good hada jireer iyo jireer weyn iyo afsho iyo korodhoqooyan markii hada taas meel liska dhiko lama good hindan ayaga bacdeen ba ficilki magacaas jireer weyn ina wadada cunsurinimo may ka cadeeyeen way magaalada Muqdisho hadda koor may ka dhii nin ayaa jireernimo gaas intii lanka bilbili maalin aday magaalada Muqdisho lagu gubi meeqa tintiyo jireer at wadanka Soomaali gudaashay la dili oo hadana jireernimo lan haraanti oo la dhahoy waa jireer oo hata lan ogayn in ayaga Soomaali bantu ayan ama ina wadamo kale ayaga ku qoyen marka ficilkas may ku tusay way cunsurinimo waa mis cunsurinimo ma ninkii ada maalin aday ada gaas ko bilbili oo jireernimo kiin gubi kiitintis jireerka at la dili oo lan haraantiyoy waa jireer oo kubi kala dhinisho yaalangna oo dambisho halko le aya nin haraantiyoy male oo ficiliyaalkasna lan inkiro korayno oo lan dafiro korayno dadkas oo tintiyo jireerta at la haraantiyay kismaaya ka dhiyan oo galmuduga ka dhiyan video yaalsho meel kasta yaala marxuunki magaalada Muqdisho lagu guwaay sab unugo laan ana igaarka jireer ay gabartayna saka jecelaada winsho lan guwaay sawirshi meel kasta yaala ma inkiro kor walaagas dhan mago cunsurinimada magac jireer kala wadada iska dhaaf wal oo lan inkiro korayna lamada suway sheekhi lama goodiyalka sheeksho ay oo magaasho la dhahaw shibili hadda ka hor may dhahi markii ana dhaxoy kow lama gooda markii ka aayo rabo ay tintisba kow may ku horoyte jireer intu u sakin aynaba kow may dhahi jireer may ki hijisiyay hindana fool xun jireer fool xun video she meel kasta ka jira asagana asagoo saas afshe ku dhaxoy wana sheekh boy wana hadii la rabo imaam boy basaasaba masaajid dad ku tujisiyo ba jireer fool xun oo jireerka fool xun adi abuurtay ilaahay ma abuurune saasa diinta muslimka dad inka sheegoyto oo sheekh ka ate marka ficilkaas ninkaas asaga ka dhagami macaanishe may wa asagana hadda lama good la dhatiyo meeqa oo tintiyo jireer at ka jirta oo waliba la dhaxoy landheero way kuwas oo tintiyo jireerta at ma dhahayan jireer laakiin ada oo sanka wiin oo tinta jireerta at ya may ka dhahaayana jireer haddii qof kasta oo tintis jireer at oo ayaga jireer inku weeroyan kaas oo dhatiyo ka dhaha jiro oo landheer ka tilmaameen may jireer dhawaayan way kaas ma dhahayan jireernimada ada sanka wiin oo tinta jireerta at adi garking at way mayna garking ka at in ada loo cunsuriyayo 4.5 ulijeedidi lansheeniya basaas at dadka qaar oo Soomaali bantu ayan oo damiir lahayn oo dhiiglaabiyaal ayan iyo may aaminsanyiina 4.5 ina dadka tintiyo jireerta at sansho wiin kali lanka talgalna laakiin xaqiiq way in ayaga kali lanka talgali ina xaqiiq atna making adeeyas oo maryaal far badan aan san ka hadali 4.5 dad far badan iyo dadka Soomaali bantu la ka dhaxdaray oo la dhahay isin dhan dadka Soomaali in ka tiriyarta iyo atan oo minority oo wadanka Soomaali dad inka dilna dad inka dhaana dad inka kufsan iyo atan la dhahay dadkas oo Soomaali bantu la ka dari geega wadanka Soomaaliya xiliyaal muhiima ka hayan oo wasiiryaal leen oo xilwaanyaal leen oo wadamada adduunka impassatorka nagadooyan oo maamulyaasho ayaga ka taliisadooyan marka dadka Soomaali bantu hadii kuwas ayaga limad ayan
oo kulisho 4.5 isla ayan may dadka Soomaali baantu intas dhan ayaga lan ku hurruugsidii way hatta deegaanyaalsho in ayaga ka taliisidan may un ogol yeegiig marka ay lan ka talgali way 4.5 ada sanka wiin oo tinta jiriirta at adi lakin ka talgali id kale ma in ka talgalna sidii ada meel kasta balakin ku cunsuriyaayo mucaawano haddii la sheeno sidii lakin ku cunsuriyaayo haddii shaqo meel ku weydiisato haddii shaqsi ahaato iyo haddii shaqo dawlad ahaatoba sidii ada lakin ku cunsuriyaayo sidii ada meel basan ku muuqano sidaas iyo lakin ka talgali way wana 4.5 iyo lakin adeegsidii way oo sharci basaas ka ad kuwii kale oo Soomaali baantu ayan oo ayagana aaminsan 4.5 in dadka Soomaali baantu ama dadka tintiyo jiriirta adsansho wiinya kelilan ka talgalan saas aaminsan kuwaasna dad oo wilishoba masqantiyo u fulka dhobanaayay way oo wilishoba aamina jiran lama god dooshe lama god iyo wilishoba ka hidfeelsanaada jiran oo hiri lama god aama jiran marka kaas wal ma fahamo hadii ad wal kasta in sheegto ku sababtay asaga walba ma ogyiba walaagi ogyi kelimay waa walaagi lama god in sheegi in asaga qoomiyadis jiriir ata in qabiilsho jiriir aya in asaga magaasho jiriir aya intaas laba ogi asaga wal kale asaga ogi geega ma jirto marka kaas oo kalna wal ku qaraabo iska yaryaba ina anaga dhanna saas u ogaano marka dadweynaha barnaamijka uu geega siinayeen higiya ka akay barnaamijka ay sinjidiyay anigu ay ku intan sinjidiyay wadanka Mareykanka gobolka Vermont studio SP channel mar kale iyo sidan oo kale hawada uu ku kulmo doon hadii ilaahay dhaho sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh